Mostly. So naagta intay soo kacday bay wajigayga soo gashay. Maxaa kaasi ah? Ninkayga maxaa ka rabtaa? كنتو عن داوديال فضلا هدي tahay mid nagu cusub ameyga marka nagu soo biiri raba fadlan channelka rukumo oo subscribe saar ayaan ku leenahay muuqaalkana sii share gareeyo la wadaaga asxaabtada qaaliga Soomaaliya suxun wuxuu sheeg sixir waa ka daran yahay maanta waxaan idin haynaa muuqaal qiiro leh iyo nolosha ay ku nool yihiin dumarka Soomaaliyeed ee dibadda lagu qabo aadiyo gooraale waxaynu maqalnaa heblaaya ayaa laga qaatay caruurtii gabadh Soomaaliyeed ayaa ka ooyeysa wadada bartankeeda Sweden gabadhaasi oo laga qaatay caruurtii balse waxa keenay in dumarka Soomaaliyeed caruurtooda la qaato bal maanta ayaynu gudagali doonaa intaan muuqaalkan u gudagalin fadlan like saar sina shargeeyo asxaabtada qaaliga la wadaag si ay u ogaadaan hablaha Soomaaliyeed oo haysta in nolol dibadda taalo gabadhan oo magaceedu yahay Maria ayaa inoo sheegtay waxa ay la kulantay iyadoo oo shaqo ka timi arin cajiib leh balse Maria arinkaasi ma ku ahaa mid ay dhibsatay dabcan hadda sida aan hadalkeeda ka dhadhaminay waxay noo sheegtay in ay iyadoo daalan tareenka soo fuushay si waliba degdeg ah ayna sii eegin tareenka ay kursiga u horeeyay isku tuurtay Maria ayaa fadhiisatay kursi wiil fadhiyo in yar ka bacda ayaa gabadh Soomaaliyeed oo xagga dambe ka fadhiday kursiga ayaa soo booday taasoo ku qaylisay Maria wiilkaasi kursigaasi fadhiyo oo isla gabadha qaylinaysa qabay ayaa qoslay xaaska wiilkaas ayaa markiiba qaylo bilowday iyadoona ku dhawaaqday erayo maseer aan u qaadanay sida walaalay maxaa ka doonay kursiga ninkayga ma fadhiisatay kuraasida badanaan intaas waxay kala gaadhay labadii dumar ahaa laakiin ninka meesha la lafcan waxaan ogeyn in dad badan oo Soomaaliyeed isagu miyaanu fayoobayn intuu xaaskiisa ka dheeraanayay sidoo ahaa wali ayuu ahaa mise waa lagu soo socday wax su'aalo ma wax jawaab kama u bixin ma dumarka dibadda joogo ragooda sano ilaashada mise waa labada qof oo Maria la kulantay oo isku kacsana dabcan waxaan ogay ay soo caawdeen kuwaas oo ku soo caawday in laga xogay ilmahooda haddaba waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool waxa tiin dad dalkoodii ka maqan isjiidkuna idin ma wanaagsana khilaafkiinuna ha ahaado mid aad gudaha ku haysataan isku daya inaad laabtiina ku haysato taasoo ku badbaadayaan ubadka aad dhasheen fadlan waad ku maadsantay waqtigaaga qaaliga ee aad nasisay fadlan channelka si rukumo subscribe saar si aad u hesho muuqaalada dabacsan aflaadka saalka soo galo maalin shaqa ka imaaday trainkaas saarna waan daalnaa so marka trainka soo fuulay lugaha xanuunaysay naag oo Soomaaliyeed baa trainka soo gashay waxay la socotay nin kale ninka asagna wiil la soo ag fadhiistay naagtana qaylay bilowday waxay dhahaysay maxaa ula ag fadhiisaa gabadhan maxaa kaasi ah fiiri kursiyaha badan yaalo asagna wuu iska qosliyay meel buu iska fadhiyay wuu iska qosliyay so naagta intay soo kacday bay wajigayga soo gashay maxaa kaasi ah ninkayga maxaa ka rabtaa anigana yaa ihaayo qoso asla naagta way waxaan aqlay wili way ku qaylinaysay iska qaylinaysay wallahi ani wax ma dhiban inay itaabto inay garaacdo way igu soo booday listen abay macaan meel iska fadhiiso ninkaada ma kaarabi gabdhaha Soomaali ma is caawiyaan nimanaha bas bay iska rabaan babla waxay u dhahday way garaacaysaa hal mar ninkayga hadeer waxa rabtaa ninkayga hadeer qaadateed waa ku jeedaa maalin shaqa ka imaaday trainkaas saarna waan daalnaa so marka trainka soo fuulay lugaha xanuunaysay naag oo Soomaaliyeed baa trainka soo gashay waxay la socotay nin kale ninka asagna wiil la soo ag fadhiistay naagtana qaylay bilowday waxay dhahaysay maxaa ula ag fadhiisaa gabadhan maxaa kaasi ah fiiri kursiyaha badan yaalo asagna wuu iska qosliyay meel buu iska fadhiyay wuu iska qosliyay so naagta intay soo kacday bay wajigayga soo gashay maxaa kaasi ah ninkayga maxaa ka rabtaa anigana yaa ihaayo qoso
qosle naagta way igu xanaaqday weli way igu qaylinaysa way iska qaylinaysa wallahi ani wax ma idhaban inay itaabto inay garaacdo way igu soo booday listen abay macaan meel iska fadhiiso ninkaada ma kaarabi gabdhaha Soomaali ma is caawiyaan nimanaha bas bay iska rabaan babla waxay u dhahday way garaacaysa hal mar ninkayga hadeer waxa rabtaa ninkayga hadeer qaadateed waa ku jeedaa